سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. عشركنا maanta wuxuu ka bilaabanhayaa aayadda 6aad ee suurada النساء kamid ah wuxuuna ku saabsan yahay munaafiqiinta. aayadkan aqrinada dhan munaafiqiinta ay ku saabsan yihiin. sababta aayadkan ay ku soo degeen waxaa la wariyay nin bishri la yiraahdo oo munaafiq ahaa iyo nin kale ee yahuud ah ayaa arrin isku qabsadeen. waxay u baahdeen markaas in dhexdooda la xugmiyo, waxaana markaas waxa la isku haysto xaq ku lahaa ninka yahuudiga ah. yahuudigu markaa wuxuu shucuurayay nebiga cadaaladiisa inkastoo san rumaysnayn. markaasuu wuxuu doortay in ay u dacwoodaan nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebiga ay isula tagaan. munaafiqiina maadaama asaga uu gardaraa nebiga cadaaladiisana uu garanayay, wuxuu damcay inaan nebiga laisula tegin calayhi salaatu wasalaam oo ay u tagaan nin yahuudda madax u ahaa oo la oran jiray Kacab bin Ashraf. arrintaa markay isu qabteen ugu dambayntii nebigay isula yimaadeen sallallahu calayhi wasallam. arrintii markii nebigu uu ogaaday wuxuu u xugmiyey ninkii yahuudiga ah inuu xaq ku leeyahay. markuu ogaaday ayuu u xugmiyey. meeshii markii laga soo tegay munaafiqii kuma raalli noqonin xugunkii nebiga calayhi salaatu wasalaam. markaasuu mar labaad soo dacweeyey ninkii ku soo dacweeyey Sayd Cumar radiyallahu anhu. Sayd Cumar markii ay dacwadii u timid ayuu wuxuu ogaaday arrintan ay ku soo dacwoodeen oo uu isula yimaadeen in horay nebigu u galay sallallahu calayhi wasallam una xugmiyey. hase yeeshee ninkan munaafiqu xugunkii nebiga uusan ku raalli noqonin. markuu arrinta isla qireen labadii dacweynaysay in nebigu horay u galay ayuu yiri ii kaadiya anaa idin kala xugmin. gurigiisuu ku laabtay, seef buu la soo baxay. ninkii munaafiq ahaa buu kurka uga gooyey oo yiri qofkii diida xugunka nebiga sidaasaan ku xugmiyaa. aayaadkana markaas soo degay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, alam tara miyaadan ogaanin, alam yantahi cilmuka ogaalkaagu miyuu gaarin, ila aladiina kuwii yazcumuuna sheeganaya annahum ayagu aamanuu inay rumeeyeen bimaa kii unzila la dejiyey ilayka adiga laguu dejiyey, wamaa kii unzila la dejiyey min qablika adiga hortaada la dejiyey in ay rumeeyeen sheeganhaya, yuriiduuna inay doonahayaan an yataxaakamuu inay u xugun tagaan ila daaquudka inay u xugun tagaan shaydaan. waqad xaal umiruu la faray ay yakfuruu inay kufriyaan bihi bidaaquuti daaquudka inay ku kufriyaana la faray. wayuriidu shaydaanu shaydaankuna wuxuu doonayaa an yudilahum inuu lumiyo ضلالا لمن بعيدا فوق
حق كفو إلهي وحوليه سبحانه وتعالى ميادا أقالكاكم ميوسن كارين أيضا النبي قال لغو لحظ الله عليه الصلاة والسلام أما قف كسته والله هدلو أي كسوروده أقالكاكم ميوسن كارين كان مقلها يو كوي الشيغان هيا إن أي رميين كي رسولك الله لغوسو دجي خداك النبي وكسعود عليه الصلاة والسلام كي لغوسو دجي إني رميين شيغان هيا قرآنكي إن أي رميين كوا الشيغان هيا وما أنزل من قبلك أدق هرتاد كي لسو دجي كتبتي كلا أنا إني رميين شيغان هيا إلا قفك مؤمنك أو قرآنك رميسان كتبتي كو ريسين وإنه رميسين إلا إيمان كان سكلا كتها من نقون كريني نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك رميسان وإنه رميسين النبي عيسى نبي موسى توراة إنجيل كتبتي رسوشي كهرية وإدل وإنه رميسين إلا إسكو هدف ويان إسكو إلى جودة ويان إسكو مستري إسكو ميل عيال لغا صادري إسكو دنبع الله صادري marka sidaas bay rusushu iyo diimuhu Ilaahay oo dhan isu kamilahayaan de wixii la taxriifiyo la bedelayna kuma tirsana oo wax muxuu ahaa dariiqi laga bixiyo weeyaan kuwa sidaa sheegan haya miyaadan ogaanin oo ayagoo sidaa sheegan haya rumaynta alla ay rumaysan yihiin quraanka ay rumaysan yihiin kutubtii ku horeysay ay rumaysan yihiin sidaa ayagoo sheegan haya haddana doonaya yuriiduuna doonaya ay taxakamu ila daaquud in ay u xugun tagaan doonaya shaytaan inay u xugun tagaan doonaya daaquudka waxa lagu joodaa kii ay damcayeen inay isula tagaan ee yahuudiga ahaa madaxda yahuudda ka mid ahaa ee Kacb bin Ashraf looranay daaquudka waxyaalo badan waan ku soo marnay marka waxa la yiraahdaa wixii xad gudbo idil baa la yiraahdaa shaydaanka iyo cawaantiisa iyo wixii Ilaahay qeyrkiisa la caabudayo idil ayaa la yiraahdaa daaquud inay u xugun tagaan doonayaan waxaana horay loo faray inay ku kufriyaan shaydaanka iyo cawaantiisa waxa Ilaahay ka soo haray cibaadadoodaba inay ku kufriyaan oo Ilaahay kaliya rumeeyaan horay baa loo faray shaydaankaas ay doonayaan inay u xugun tagaan asagu wuxuu doonayaa inuu baadiyeeyo wayuriidu shaydaankuna wuxuu doonayaa ayudillahum inuu baadiyeeyo doonayaa dalaalan baadiyeyn baciidan fog oo xaqa ka fog وإذا قيل هدي لي يراهدو كواس لهم أيغا لغو يراهدو تعالوا كاليا إلى ما كي أكاليا أنزل الله إلهي أسودجي لقرآنك وإلى الرسول كأكاليا حقن كيسة ومركو الرسول كنا ولانا النبي جيب كل عيسى عليه الصلاة والسلام قداشيسنا وحي كل عيسى النبي حديثتي كان الله أسودجي أكاليا هدي لي يراهدو قرآنك رسولك أكالي حديثيس سهدي لي يراد رأيت وعد أرك المنافقين يصدون إني جيسانيان عنك حقاقا إكا جيسانيان صدودا جيس الشؤاد هريو حلوغو صوت المامي منافقين إني إيمان شاكتان أيغو أو إيمان كوحو كين هيو أن يلين أو كتابك إلهي رسولك سأن أقلين oo markaas wax kale u xugun tagahay hadii marka loo yeero oo loo aqal celiyo oo la yiraahdo waray kaalay kan alla soo dejiyay u kaalay rasuulkii alla uu soo adeejiyay u kaalay tahdii la yiraahdana waad arki ba ilaahay leeyahay kuwa munaafiqiinta inay jeesanayaan xaggaaga ay ka jeesanayaan jeesasho aad ah saasad arki oo cinaad iyo madax adeeg dabeecadooda ay tahay iyo xaq ka cararid markii tilmaantooda sidaasna loogu soo sheegay ayaa markaas waxaana la tusinhayaa intaanba xataa aakhira la gaarin fadiixooda adduunyada ay ku fadiixoobayaan iyo siday u qoomamaynhayaan iyo qoomamadaas toobad ayna ka ahayn isla waqtigaas muxuu sidii daliilin u yihiin fakayfa sideeba ahaanhaya xaalkood إذا أصابتهم هدي أصيبته مصيبة فتنة هدي أصيبته عيب هدي أصيبته كشفت حال كودي وكشفمي ويكو أصيبته وبينتو دي أي عدات مصيبة هدي أصيبته بما قد
qadamad aydiihim bisababi maa qadamad aydiihim gacmahoodu waxay hormarsatay sababteed musiibo ay u asiibto xaalkoodu see ahaanaya uma jaa-uuka markaas ay kuu imaanhayaan yaxlifuuna ayagoo dhaaranhaya billaahi ilaahay ku dhaaranhaya in aradnaa ma anan doonayninoo ulama anan joodin waxaan samaynay ilaa ixsaana wanaag iyo ixsaan fal mooye wax kale ulama anan joodin iyo tawfiiqan iswaafajin dadka aan doonayno inaan iswaafajin saasay odhanhayaan kuwa xaalkoodu sidaa yahay daaquudka isula tegayaan aan aqbalaynin kan alla soo dejiyey rasuulkiisa aan aqbalaynina ka jeesanhaya markii arrintoodu ay kashifanto oo ceeb ay ku dhacdo markaas ayay imaanayaan oo rasuulka allow adiga ay kuu imaanhayaan ayagoo been ku dhaaranhaya yaxlifuuna billaahi ilaahay waxay ku dhaaranhayaan in aradnaa ilaa ixsaanan wa tawfiiqan ulajoodada iyadu waa ficnay waxa aan samaynay beenin alla aan beeninayno iyo rasuulka aan beeninayno nagama ahayn waxaan uga qastaynay inaan ixsaan samayno oo dadkii aan u ixsaan falno inaanu dadkii dhexdooda heshiis iyo tawfiiq ka samayno sidaas yaan u qastaynay bay odhanhayaan markaas ulaa'ika kuwa aladiina kuwii weeye yaclamu allaahu ilaahu og yahay maa uu og yahay fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ahaatay waxa quluubtooda dhexdeeda ah ilaahay waa ogyahay munaafiqnimada kufrinimada ah xaq ka cararidda ah ilaahay waa ogyahay kuwaas waa kuwa ilaahay ogyahay waxa uurkooda ku jira fa acrid jeeso canhum xaggooda isaga jeeso wacidhum wacdi oo waaniyoo u caqli celi waqul dheh lahum ayaga fii anfusihim naftooda dhexdeeda qowlan qowl u dheh daliiqan oo xayl dheer xaalkoodu sidee ahaanhayaa markii waxaana la ku cajabgelinhayaa siday u ceeboobahayaan u kashifmahayaan adduunyada nafteeda ay daliilin ugu yihiin markaa kolkay kashifmaanba ay nebiga u imaanhayaan calayhi salaatu wasalaam ay u cudur daaranhayaan been ay ku dhaaranhayaan ay odhanhayaan wanaag unbaa anagu u joodaynay mooye beenin aan ku beeninayno ama alle aan beeninayno ama kitaabka ilaahay aan kahanayno ulajoodada iyadu ma ahayn sidaas ayay odhanhayaan kuwaasaa marka ilaahay leeyahay waa kuwo ilaahay og yahay waxa uurkooda ku jira kufrinimada ah munaafiqnimada ah xaq diidada ah rasuulka in muxuu aha ku kalsamayn ah kuwaas waa kuwa saas isaga jeesaa markaa rasuulka lagu leeyahay fa acrid canhum xaggooda isaga jeeso isaga jeesadaa waxaa loo wadaa waxba ha soo dhoweynin waxba bashaasho iyo weji furfurnaan ha ku qaabilin isaga jeeso oo ha soo dhoweynin kuwaas oo waxaad yeeshaa wacdi ama fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso oo ilaahay baa kula xisaabtamahayee xaggooda isaga jeeso wacdi oo wacdi xayl dheer hadal xayl dheer naftooda saameeya u dheh hanuuni oo u caqli celi dadka had iyo jeer waxaa wanaagsan marka hore in xaqa laga dhaadhiciyo in lagu wado in la hanuuniyo in loo caqli celiyo in loo dhimriyo gafaf hore hadday muxuu ka dhacaan kolka qaarkood liiska saamaxo laga jeesto markaas kolka qaarkood muxuu ahaa wejiga laga dadbo kolkay xun yihiin xumidooda ayagoo loo ishaarayo kolka qaarkood hadal wanaagsan iyo caqli celin iyo hadal xayr dheer hanuunis la yiraahdo sidaasaa la leeyahay munaafiqiintii kula mucaamalow nabiga calayhi salaatu wasalaam munaafiqiinta isagoo og munaafiqnimadooda ma leyn jir haddana waana laga digtoonaan jiray sirta iyo mu'miniinta xaalkooda hoose ee muxuu ahaa khatarta waa laga qarin jiray waxay ahaayeen kuwo uun ogyahay xaalkooda oo hanuunis iyo caqli celin iyo canaan iyo muxuu ahaa sidaas lagu wada ayay ahaayeen casharkeena maanta intaasuu ku ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullah